Assalaamu calaykum maqaarta soo dhawaada waa mar kale muuqaal cusub. Labadaan sawir markii aad aragto waxaa laga yaabaa inaad u malayso inay yihiin laba qafood, balse sida aad moodayso ma ahan. Gabadhani magaceedu waa Balanji Monier. Sawirkani waxaa laga qaaday 1870kii, halka sawirkani kalena laga qaaday 1901kii. Qoftani waxa sidaan u galay sida ay hadda tahayna ka dhigay waa hooyadeed iyo walaalkeed. Waxayna qol ku xirnayd muddo ku dhawaad 26 sano ah. 26kaasi sanana banaanka looma soo saarin. Xitaa haddii ay saxaro qabato waxay ku saxaroon jirtay isla qolkii ay ku xirnayd. Cid daryeeli jirtana ma aysan jirin. Balse inteena si toos ah faahfaahin uga bixin muuqaalka, fadlan like saar muuqaalka lana wadaag saaxiibada adigoo u share gareynaya wixii fikirkaaga ayna nagula wadaag qaybta commentiga. Dhacdadani waa dhacdo hore oo qadiimi ah waxayna ku dhacday gabadhani oo lagu magacaabo Balanji Monier. Balanji Monier waxay dhalatay 1kii bishii Maarso 1949kii. Balanji aabaheed wuxuu dhintay iyadoo aan wili qaan gaarin, yacni iyadoo canug yar ah. Balanji Monier iyo walaalkeedba waxaa soo korisay hooyadood. Hooyada Balanji waxay ahayd qof aad u cool oo hadalkay tiraahdo aan hadal la soo dul saari karin, halka Balanjina ay ahayd qof alle qurux ugu deeqay misna dabci aad u wanaagsan leh. Balanji markii ay da'da 20 cagaha la soo gashay waxay isbarteen wiil qareen ama abuukaate ah. Balanji aad bay uga heshay wiilka ay isbarteen, muddo kadibna jacayl ay isku sheegteen. Dadkuna waxay wax waliba ka dareemi karayeen habka ay u wada socdaan iyo sida dabacsan ay iskula hadlaan. Nuxnuuxda iyo hadalheynta Balanji iyo abuukaataha waxay gaartay Balanji hooyadeed. Balanji hooyadeed oo magaceedu ahaa Madam Monier waxay ahayd dadka nuuca aad ku nacab dadka fuqarada ah, sidoo kalena waxay ahayd qof aad iskula weyn. Balanji hooyadeed waxay aad uga xumaatay in gabarteedu ay la socoto nin faqiir ah, iyadoo sidaas ugu xumeed in gabarteeda ay wada socdaan ninkaasi faqiirka ahi. Ayaa Balanji u timid waxayna dhahday, hooyo anigu ninka abuukaataha baan jeclahay, in uu guursadana waa uu rabaa ee adigu sidee kula tahay. Balanji hooyadeed xanaaqii baa ku sii karay intaysan u jawaabin gabarteedana waxaa ku soo dhacday fikrad bahalnimo ah. Fikradaasina waxay ahayd in Balanji ay ku xirto qol dib dambana aysan banaanka uga soo bixin. Balanji hooyadeed intay istaagtay ay wiilkeedu u tagtay, kadibna waxay u sheegtay waxa ay walaashiis samaysay iyo waxay damacsan tahay. Wiilkii oo aan waxba dhaamin hooyadii ayaa dhahay, oo waaba beele intaysan naceebeenin qoftaani inaga astur. Markii dambena Balanji iyadoon waxba ogeyn ayay soo qabteen kadibna qol ku xireen. Xilliga Balanji qolkaasi lagu xirayna sanadka wuxuu ahaa 1875kii. Qolka Balanji lagu xirayna ma uusan ahayn sida guryaha casriga ee hadda jira. Qolka Balanji lagu xiray ma uusan lahayn wax dariishada ama daaqada. Wuxuu waqtiga isguraaba 10 sano markii ay Balanji ku xirnayd qolka waxaa dhintay ninkii abuukaataha ahaa ee isjeclaayeen. Laakiin Balanji ma uusan soo gaarin warbixintaasi ah in uu dhintay ninkii ay jeclayd. Wuxuu waqtiga isu sii guraaba maalinba maalin kuu dhiibto, bilba bil kuu sii dhiibto, sanadba sanad kuu sii dhiibo. Ugu dambeyntii Balanji waxay meesha ku jirtay muddo ku dhawaad 26 sano ah. 26kaasi sanana ma aysan arkin wax qorx ah, iftiinna haba sheeginba. Balanji 26kaasi sano ee qolka ku jirtay xitaa hal mar lama nidaamin qolkaasi ay ku jirtay. Balanji qolkaasi ay ku jirto ayaa masquul ama suuli u ahaa, welibana hooy ee saaxataba u ahaa. intaas oo sanana waxay ku nooleed nadaafad xumo iyo daryeel xumo. xitaa Balanji hooyadeed markii ay maqashay inuu dhintay abuukaatihii ay gabadheeda jeclayd ma aysan xurayn gabadheeda. Inay xurayso bas gabadhaaya xitaa kuma aysan fikirin inay xurayso gabadheeda, waxayna ku sii haysay qolkii ay ku xabisnayd. Haddaba sanadka markii uu ahaa 1901kii waxaa dhacday in Balanji hooyadeed ay u sheegtay islaan kale ay saaxiibo ahaayeen in gabadheedu ay nin si saa'id ah u jeclaatay muddo ku dhawaad hadda laga joogo 26 sano. intaasi kadibna ay qol ku xirtay ilaa haatadanina ay qol ugu xiran tahay. Islaantii markii ay hadalkaasi maqashayna waxay warqad u dirtay booliiska, iyadoona ugu sheegtay warqadda inay jirto gabar ku xabisan qolkana ay ku xireen hooyadeed iyo walaalkeed. intaasi kadibna booliiska ayaa imaaday gurigii ay ku xirnayd Balanji. Balanji hooyadeed markii ay booliiska aragtay waa ay argagaxday iyadoona isku naxday. booliiskana gurigii ayay baaritaan ku sameeyeen, waxayna ku arkeen qol ka mid ah qolalka guriga oo nadaafad xumo ba'an ka jirto. Balanji oo caata saa'ida noqotay. intaasi kadibna waxaa Balanji isbitaal geeyay booliiska, halka Balanji hooyadeed iyo walaalkeedna la geeyay xabsiga. Balanji walaalkeed wuxuu ku andacoonayay in aysan cidi ku qasbin inay Balanji ku jirto qolka, balse uu rabitaankeedu ahaa inay ku jirto qolkaasi. laakiin hadalkiisa lama rumaysan, waxaana kaloo la sheegay in Balanji walaalkeed uu maskaxda ka jiranaa, sidaa awgeedna aanan la xakumi karayn hadda. halka Balanji hooyadeedna ay dhimatay 15 maalmood kadib markii Balanji laga soo saaray qolka. Balanji markii qolka laga soo saaray waxaa la sheegay in miisaankeedu uu ahaa 25 kilogram, halka da'deeduna ay ahayd 52 sano jir. intaasi kadibna waxaa joornaalada oo idin lagu soo daawacay qisada Balanji Monier. Balanji markii ay dhacdadii aad ku xanuunka badneed ku dhacday kadibna intaasi kadibna Balanji waxay sii nooleed 12 sano oo kale. Balanji waxay geeriyootay 13kii bishii Oktoobar 1913kii iyadoo 46 jir ah, waxayna dhaqaatiirtu sheegeen in Balanji ay u dhimatay dhibtii soo gaartay muddadii ay ku xabisneed qolka, halka Balanji hooyadeed iyo walaalkeedna la sheegay in ay qabeen cudurro nafsi ah.